maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay inay soo gabagabeeyeen howlgal ay ku sheegeen inuu ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga iyo kala dambeynta maamulka koonfur galbeed. Baydhabo saaka waxaa ka dhacay weerar hubaysan kaasoo khasaare dhimasho iyo dhaawacba la geystay. Siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka madaxweyne Laftagreen ayaa ku sifeeyay in dagaalkaas uu ahaa mid ay qaaday maamulka koonfur galbeed kulana dagaalamaysay mucaaradka ka soo horjeeda. Guriga mid ka mid ah wasiiradii hore ee maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya xilliga Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weerarku ka dhacay. Inkasta oo maamulku sheegeen in la soo afjaray howlgalka lana xaqiijiyay deganaanshaha sida lagu qeexay war qoraal oo maamulka ka soo baxay laguna qoray luqadda Ingiriisiga ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay tixgelinayso deganaanshaha iyo wadajirka bulshada kana hortagtay in la abuuro nabadgelyo darro. haddana dhinaca siyaasadda ee madasha Muqdisho ayaa ku sifeeyay weerarkaas inuu ahaa mid xorriyadda lagula dagaalamayo. maamulka koonfur galbeed oo Cabdicasiis Laftagreen hogaamiyana waxay ku sifeeyeen in sharciyadiisa ay dhamaatay. inkasta oo deganaanshaha siyaasadeed ee Soomaaliya xaaladdan ay ku noqonayso qayb cusub oo soo korortay, haddana maalin kadib hogaamiyaasha madasha wadatashiga dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa u madlan kulan ay kaga hadli doonaan arrimaha siyaasadda. gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur oo dhawaan ka soo laabtay Baydhabo ayaa iclaamiyay in 5 bisha nagu soo wajahan uu ka dhaco Baydhabo kulan dib u heshiisiin oo dhex maraya dhammaan siyaasiyiinta ku kala aragti duwan xaalka koonfur galbeed. Axmed Madoobe war qoraal oo isna maanta soo saaray waxa uu sheegay inay u muuqato in farqalooyinkii maanta ka dhacay Baydhabo ay yihiin kuwa lagula dagaalamayo shirka ama lagu fashilinayo. wuxuu sheegay in xilliga isla xisaabtanku uu taagan yahay isla markaana dhammaan dhinacyada siyaasadda ee arrinta ku lug leh ay tahay miiska wadaxaajoodyada in looga wada hadlo. dowladaha reer galbeedka gaar ahaan beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa cambaareeyay tallaabooyinkaas waxayna ugu yeereen dhammaan darafyada in wada hadal siyaasadeed la aado. qoraal kooban oo ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya soona baxay bilowgii ugu horreeyay ee dhacdada waxaa lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka xun tahay arrimaha ka taagan magaalada Baydhabo. qaar ka mid ah saaxiibada madaxweyne Xasan Sheekh iyo xubnaha isku saami qaybsiga beelaad ee ka soo jeedaan ee galmudug badan ayaa cambaareeyay arrinta Baydhabo. madaxweynaha koonfur galbeed ayay ku eedeeyeen muddo kororsi inuu ka shaqeynayo xilli dhammaan dowlad goboleedyada oo dhan ay kororsadeen waqtiga marka laga reebo dhinaca Puntland. qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay koonfur galbeed ayaa cambaareeyay weerarka waxayna sheegeen inuu ahaa isku day la doonayo in maamulka lagu dumiyo sida ay ku sheegeen xubno ka mid ah xildhibaanada oo shir ku qabtay magaalada Baydhabo. dhinaca kalena koox xildhibaana ayaa iyana ku qabtay shir Muqdisho kaas oo ay ku sheegeen in maamulku uu ka shaqeynayo nabadgelyo darro waana bilowga xaalada siyaasadeed oo hubanti la'aan ah oo dhammaan dhinacyada saameyn ku yeelan doonta. dhacdooyinka siyaasadeed ee hadda ka taagan Baydhabo ayaa u muuqanaya barbilowga khilaafaadyo siyaasadeed oo harayn doona xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya. xubnihii hore midowga musharaxiinta ee Muqdisho ugu mideysnaa doorashadii Soomaaliya ayaa hadda u xoobsiimanaya koonfur galbeed iyadoo oo yoolka ugu weyn durba lagu fasirayo inuu yahay la dagaalamaya Laftagreen. waxay aaminsan yihiin in xilligii oo dhankooda taageero uga baahnayeen uu taageeray madaxweynihii 9aad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida gudaheeda ayaa ku kala aragti duwanaan doona qodobkan. inta badan madashii musharaxiinta ayaa u laaban doonta dhinaca la xiriira in Laftagreen ay ka soo horjeestaan dhammaan dowlad goboleedyada kala muddo kororsigoodana ay sharciyadu arkaan.